السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan. waa habeenimo talaada ah oo Arbaca ay soo galayso taariikhduna ay tahay 2 bisha September sanadka 2025. haddaba qodobo muhiim ah aynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahinaynaa. waa hubaa in si weyn uga hesheen macluumaadkii iyo wararkii aynu ku soo gudbinay barnaamijyadeedii subaxnimo iyo kii galabnimo. wararka soo kordhay waxaa ka mid ah maxaa ka soo kordhay weerarkii Xuutigu ay ku qaadeen goobo ka tirsan gudaha Israa'iil saacada ka hor. Israa'iil maxay ka yiraahdeen weerarkaas waa idin hayaa. waxaa soo kale barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa haweeneyda ugu sarreysa dhanka siyaasadda midowga Yurub oo la sheegay in ay dhiman gaartay kadib markii diyaaradii ay la socotay la soo weeraray. haddaba sidee wax u dhaceen yaa soo weeraray tafaasiil ku saabsan arrinkaas ayaynu iyana barnaamijka ku faahfaahin doonaa. waxaa soo kale barnaamijkan idinku hayaa Mareykanka oo u cagajugleeyay Faransiiska arrinta ku saabsan aqoonsiga dowlad Falastiin. Macron oo hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka oo isaguna Faransiiska wasiirkiisa la hadlay. haddaba xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa Faransiiska iyo Mareykanka oo cirka isku shareertay saacadihii la soo dhaafay. qodobadaas ayaynu caawa barnaamijkeena ku faahfaahinaynaa. inta aan ku jirno wixii warara ee soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. ogeysiis muhiim ah waxaa lagu wargelinayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya in la furay xarun ay ku midaysan yihiin injineero Soomaaliyeed oo dhanka dhismaha waxaana lagu magacaabaa xaruntaas Vanguard Solutions. waxay ka caawinayaan hindisaha iyo naqshadaynta dhismooyinka kala duwan sida daaraha dhaadheer iyo kuwa gaagaaban, kaabayaasha culus ee dhaqaalaha sida wadooyinka, buundooyinka, eeraboorada iyo dekadaha, iyadoo ay ku adeegayaan injineero khubaro ah oo ka soo shaqeeyay dalka dibadiisa sida wadamada midowga Yurub iyo Ingiriiska iyo qaar ka mid ah dalalka bariga dhexe. waana khubaro ka diiwaan gashan machadyada qabiirada injineerada ee dalka UK sida macadka la yiraahdo Institution of Civil Engineers oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano ICE, kuwaas oo ka gaaray heerka aqoontooda C Engineering iyo waliba dib u dhiska iyo dib u dayactirka dhismooyinkii ku burburay dagaaladii sokeeye. waxay sidoo kale ku ballan qaadayaan inay ka shaqayn doonaan adeegyadaasi. fadlan la xiriir telefoonada iyo emailada shaashada ku qoran si aad u hesho injineeradan takhasuska u leh dhismaha kala duwan. kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo. haddaba iyadoo ay noo soo socdaan dhowr qodob oo muhiim ah ayaynu waxaynu ku bilaabaynaa. haweeneyda dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ugu sarreysa midowga Yurub ayaa la sheegay iyadoo la socota diyaarad in ay markaa diyaaradeedu khatar soo food saartay iyadoo la soo weeraray. haddaba diyaaradda yaa soo weeraray, maxaase lagu sameeyey? waa su'aalaha ugu badan ee qofku isweydiinayo markii uu maqlo in diyaaradii haweeneyda madaxda ah la socotay la soo weeraray. haddaba waxaa la sheegayaa in tashwiish lagu furay qalabka GPS-ka ee diyaaradda haga. diyaaradii waa waalatay meelay ka timid iyo meelay u socoto ayay aqoon weyse. khatar aad u khatarsan ayay gashaa la leeyahay haweeneydaas
dhowr jeeroo hore shirar ay ka qayb gashay ayay si xun u weerartaa layidhi Putin. marka hadda Yurubiyankii iyo NATO kulli waxay haystaan Ruushka ka dambeeyay leeyihiin inuu Putin naagtaa ka takhalusuu rabay oo isdhaafiyo. haddaba marka sheekada waalan ayaa caawa waxaa qoraya qaar badan oo ka mid ah warbaahinta. waxaynu ka soo qaadanaynaa telefishinka Al Arabiya wuxuu leeyahay kadib markii tashwiish lagu furay diyaaradii ay la socotay haweeneyda la yiraahdo von der Leyen ayaa waxaa la sheegay in gaashaanbuurta NATO ay markaa samaysay warbixin inay ka soo saartay arrinkaas. haddaba xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Mark Rutte ayaa waxa uu sheegay in tashwiishka nidaamka xadidaya diyaaradda GPS-ka diyaaradii ay la socotay madaxa Yurub u qaabilsan arrimaha siyaasadda Ursula von der Leyen ayaa waxay dhacday leeyahay sheekadan oo markaa ilaa hadda baaritaan lagu waday gelinkii dambe ee Axadii. waxaana la sheegay diyaaraddu inay markaa ku sii jeeday waddanka Bulgaria. waxaana la sheegay in shilkani la rumaysan yahay inay soo galeen oo ay ka dambeeyeen Russia ama Ruushka inuu ka dambeeyay. haddaba sheekada la yaabka leh ee warbixinta ugu dambaysa waxaa leeyahay waxay ku badbaaday haweeneyda madaxda ah nimanka diyaaradda duulinayay oo ahaa khabiiro markaa iyagu u tababaran haddii ciladi ku timaado GPS-ka inay diyaaradda hagi karaan iyagoo isticmaalaya khariidada warqadda sida la leeyahay. haddaba warbixinta waxaa leeyahay khariidada warqadda sawirada ayay diyaaradda ku wadeen kadibna waxay dejiyeen magaalo la yiraahdo Plovdiv oo iyadu ka tirsan waddanka Bulgaria. mas-uuliyiinta Bulgaria shir saxaafadeed waxay ka sheegeen in diyaaradda ay si nabadgelyo ugu degtay magaaladaasi Bulgaria ka tirsan. waxayna sheegeen in kooxo loo malaynayo Ruush inay weerar ku soo qaadeen diyaaradda oo GPS-kii ay markaa diyaaradda ay ku soconaysay ay khatar geliyeen. waaye marka haweeneydii marka waa la helaa leeyahay diyaaradeedii GPS-ka ka lumay. haddii GPS-ku mar lumana diyaaraddu de meelay u socoto iyo meelay ka socoto ma taqaano. maxaa dhacaya marka dad badan oo falanqaynaya sheekadan wax laga weydiiyey sidee khariidada warqadda uu duuliyuhu ugu dejin karaa diyaaradda. taasaa marka dad badan oo duuliyaal soo noqday iyo ayaa warbaahintu wax ka weydiiyeen. haddaba qaarkood marka waxay leeyihiin duuliyaasha qaar ayaa loo tababaray khariidada iyo maabka meesha ay socdaan. marka kadib diyaaradda wuxuu kasoo hoos marinayaa caadka cad meesha wuxuu usoo dhawaanayaa dhanka dhulka ayuu usoo dhawaanayaa kadibna maabka ayaa lagu soconayaa. marka waxay leeyihiin waa sheeko aad u dhib badan. waa arrin qof kasta uusan samay karin duuliyo kasta aanu ka bixi karin. duuliyaashu waxay ku fiican yihiin GPS-kaasaa wada waa la soo gaaray aeroboortka 100 kilomitir hoos u deg kaas hoos u deg waa joogtaa cagardhigo dhag saasuu ku fiican yahay. laakiin mar GPS-ka hadduu lumo wareerkaasaa dhacaya. marka waxaa leeyahay islaantu waa fakatay xaalkeedu hadda waa okay inkastoo hadda NATO ay ku dhegan tahay Ruushka oo la leeyahay arrinkaa meel soo saara Ruushow. Putin maa kala jecel marka waxaa shaqo ma kulihiin uu leeyahay isaga. marka hawshaasu halkaasay maraysaa. waaye marka qodobka kale ee barnaamijka arrinta ku saabsan weerarkii Xuutiga iyo meeshuu ku dambeeyay way noo soo socdaan. laakiin markan waxaynu galaynaa Faransiiska iyo maaragtay Mareykanka ayaa waxaa la sheegayaa inay ka dhex tafan tahay oo xaalkoodu markaa qatar ku jira. maxaa lagu haystaa Faransiiska? Mareykanka waxaa gadaal ka taagan Israa'iil oo dhahaysa Faransiisa waxaa nagu waday naga aamusi. September dawlad kasta waxay leedahay waa aqoonsanaynaa Falastiin. Israa'iil marka waxay leedahay arikaan naga qabta naga joojiya. waataa idin sheegay wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Mareykanka inuu sii tagay bisha September shirka UN-ka ee aqoonsiyadu ka dhici doonaan inuu wuxuu kala furi kara kala furo. marka qolo waa lala hadlaya qolona waa la handadayaa. handadaada la isugu kaadaraa iyo hadal
maraykan wuxuu ka bilaabay falastiiniyiintii wuxuu u diiday fiisi ma iman kartaan uu yidhi horta idinka maanoo nimankii la aqoonsanay ahaa shirka maba imaan kartaan dadkii wadaa usoo haray marka faransiiskii iyo sooma soo harin faransiiskii marka haddaa lala hadlayaa marka waraa soo baxay haddaba marka aan idintusoo warbixin goordhow telefishinka aljazeera uu qoray waxaa leeyahay maraykanka wuxuu gaarsiiyey faransiiska inaanu ogolayn maraykanka ictiraafidda la sheegayo dowlad falastiin wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa war soo saartay caawa waxay sheegaysaa wasiirka arrimaha dibadda Marco Rubio ninka la leeyahay inuu telefoonka kula hadlay dhigiisa faransiiska John Noel Barrot waxaana uu u sheegay in maraykanku uu diidan yahay ictiraaf hal dhinac kaliya ka imaanaya oo dowlad falastiin ah Rubio waxa uu sheegay in marnaba maraykanku aanu aqbali doonin sheeg arintaasi ma u jeedaa waxa lagu leeyahay dadka falanqeynaya waxay leeyihiin tahdiid waa nooc min alhanjabaad ayaa faransiiska la leeyahay telefoon inta loo diray waxa leeyahay ma ogtahay maraykanka inaanu ogolayn dowlad falastiina in la sameeyo oo waliba hal dhinac ka imaanaysa macnaha dhinacii kale waa Israa'iil way diidan tahay labadoodii oo iswaafaqsanaa loo ogolaan karaa Israa'iil ma waafaqaysa dowlad falastiin in la sameeyo may ha sheegin marka wuxuu ku leeyahay faransiisow ogow maraykan ma ogola waxa aa wado sheekadan aa ka shaqaynayso ka joog waay macnaha waa nooc min at-tahdiid marka waxa leeyahay wasiirkii arrimaha dibadda faransiiska hadal hanjabaad u eg ayaa lagula kacay kadib marka isagana wuxuu la xiriiray madaxweynihiisa wuxuu yiri nimankii saasay soo leeyihiin ka waran ninka Macron la leeyahay marka waa ninka sheekadan dhan alifay asagiya marka hadana soo tuuray wuxuu leeyahay Macron wuxuu leeyahay i'tiraafka dowlad Falastiin la i'tiraafayo loo joojin maayo cidna iyo wax kastoo la soo sameeyo weerar kastoo la soo qaado cid loo joojinayo male madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu sheegay go'aanka maraykanka uu ku diiday inuu fiisooyin siiyo mas'uuliyiinta Falastiiniyiinta si ay uga soo qayb galaan shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay go'aankaas inuu yahay mid aan la aqbali karin wuxuuna ugu baaqay Washington inay ka fiirsato oo ay ka laabato go'aanka fiisaha ay ugu diiday mas'uuliyiinta Falastiiniyiinta ah inay shirka ka qayb galaan ninka warkiisu waa cad yahay Macron wuxuu leeyahay cid loo joojinaa maletan maraykan haandado dadka ama haqayliyo si u taala waliba waxaan ku haysanaa dadka Falastiiniyiinta fiisaha inuu siiyo xataa hadduu u diido maxaa dhacaya leeyahay haddii uu diido xataa waa aqoonsanayna ay taageen ayagoo guryooda jooga Falastiin aan dawladdu aqoonsanayna maraykan wuxuu diidaa inay yimaadaan meesha oo ku feesteeyaan marka Israa'iil marka maraykan mar walba hagaysa waa diidan tahay marka ninkii Macron ahaa go'aankaasu isaguna qaataa la leeyahay halkaas ay hawshu maraysaa qadar xayisiisa kadib weerarkii xootiga uu ku qaaday maanta ee gilgalay Israa'iil wararkii ugu dambeeyay ka soo kordhay ayaan idin la wadaagaya mataashahay barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markaas Daaru Taqwa waxa kugu baray quraanka hab casri ah online maadooyinka ka bar karto waxa kamid ah quraanka kariimka ikada luqada carabiga iyo culumta shariicada sidoo kale way socotaa fadlan horugaad waxay faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaad dugsiga markaas Daaru Taqwa شركة إمارة لكشري هومز وشركة قريها عصرية كدست مقالة نيروبي دالكا كينيا هادنا waxay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafada Backlands jidka 6 Avenue City Park dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaan duplex haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoygu waa muhiim hanti yeelo kala xiriir telefoonada kulanti wanaagsan markale asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waa habeenimo talaada oo 4 ay soo galayso barnaamijkuna waa qaybihii ugu dambeeyay ayuu maraynaa
haddaba maantaydii hore barnaamijkii galabka waxaynu ku soo qaadanay ninkii yaxyaa sariic ahaa oo feesteynaya 4 weeraraan qaadnay nagtaa ka saarnay meeshii abaanduulka ciidanka eraboorkii dekadii osduud meeshii korontada laga dhalinayay waa wada gubnoo yiri israa'iil shibsay u ahaydee waxay leedahay marka haddeer diyaarado daroonana la ku soo weeraray laakiin waa iska caabinay tafaasiir kale lama hayo diyaaradii daroonkana la ku soo weerar waa iska celinay nimanka kanuna waxay leeyihiin bifadlillaahi ilaahay fadligiisii meeshii aan ugu talagalnay ayay diyaaradii fadhiisatay macnaha diyaaradahooda weerarka qaadaa laguu sheegaayo diyaarado soo laabana maaha hal maraa waxeeda loo dhammaystiraa miinooyinkeeda lagu raraa waa lasoo fasaxa meeshay tagtay ku nasanee marka ay qabso waa dhab haw meeshaas marka cirkay gelaysaa marka nimankii hawshaas saasay u qabteen israa'iilna waxay leedahay waxaana soo gaara bale diyaaradii waa ka hortagnay xuutina waxay leeyihiin tan waa bilow aargoosigeennii bilowgiisii waay wixii soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa caawa barnaamijkaygii waa nagaytaa meel kastoo aad joogtaan waxaan idinka codsanayaa inaad barnaamijka ka qayb qaadataan laygaraynta sheerka sidoo kale fakarkiina aragtidiinana aad soo qortaan barnaamijka dadka ku cusub youtube-kana subscribe facebookana follow gareeya inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo